سلطان محمد سلطان عبد القادر oo Suudaanka guud ee beelaha Somaliland oo maanta la hadlay telefishanka Hon Cable ayaa ku baaqay in loo istaago daminta shaqaqada ka jirta degmada Ceelaf Weyn ee u dhaxaysa bulshada halkaas ku wada nool nabadgelyadu walla ma huraan ummadda reer Somaliland culimo oqaal ganacsato waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo sidii loogu raadin lahaa labada beelood ee beelad dhex taagan tahay waxaan leeyahay dadku gurmad xooga ha ka galo oo yaal loo kala hari xukuumad iyo shacbiga in la baxo oo meesha la tago Sultan Maxamed Sultan Abdul Qaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in halkaasi loo diro ergooyin dhiiran oo u bareeri kara halis kasto ay leedahay nabadeynta labadaasi beelood kana go'an tahay in la wanaajiyo dalisnimada bulshada halkaasi ku wada dhaqan dadkii hore markay dadka kala saarayaan iyaga xabadda isu dhigi jiray markaad aduu nabadgelyo doonayso inaad aliso waxa weeye xabadda la isku wada adiga ha kugu dhacdo adiga ka ergeeyay toogu fiican horta waa taa dadka ergada u tagayana waxaan leeyahay nafsiina u qura nabadgelyada waayo si kale nabadda ku imanaysa ma jirto ilaa aniga la igu dilo nabadgelyo ma imanayso laakiin marka ergadu ka xumaato ay waxyeelliya dhibaato timaado laakiin ergada ku saaran gashay inay iyagu lafahooda ku waayaan markaas ergadu waxay wanaagsan noqonaysaa anaana idinku horeynaya nabadgelyada sidii loo raadinayo ciddii raacsa anu diyaar baanay Somalilandna ha guulaysataan leeyahay nabadgelyana ha isku raacdo Sultan Maxamed Sultan Abdul Qaadir waxa uu sidoo kale baaq gaar ah u diray bulshada dirirtu ay ka dhaxaysay ku wada nool degmada Ceelaf Weyn isagoo u soo jeediyay in dadka hortoodba ay xaliyaan kala qaybsanaanta dhexdooda dadka Ceelaf Weyn waxa leeyahay nabadiina si wada jira inay u ilaashataan mooyee midkiina hadduu shiraado kala ka argooso oo kugu dhimay oo ka dhimay ugu dambeyn Sultan Maxamed Sultan Abdul Qaadir waxa uu ku baaqay in wada hadal lagu dhameeyo xiisada dagaal ee ka dhex ogan Somaliland iyo Puntland oo ciidankoodu ay isku hor fadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Tukaraqna waxaan leeyahay arinteeda nabadgelyo iyo wada hadal ha ku dhameeyaan Puntland iyo Somaliland wuxuu dhaxeeyaa ma jiraan Cabdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV